$30 xal gashay dalka Suudaan. Suudaan. Marka kulli waa xamleynaa sheeko qof walba inuu ogaado ee muhiim ay tahay qof $30 dal la galay dalkaasna lacag ka sameeyay. Marka Suudaan maxay ugu duuneed wadamada kale $30 in la galo lacag laga sameeyo adag tahay mise adiga ka dadka duwanaa. Bishaar dheer Soomaaliya waxaad ka timid adigoo 17 sano jir ah. Sax. Kenya timid. Sax. Shilin jeebkaada kuma soo joogin. Sax. Waxaad ka soo baxday comfort zone-ka ku jirtay. Sax. Marka sidoo dalkan ku soo dhaweeyay Sax. halkeena ka bilowday tilaabtaadii ugu horeysay kadib markaa dalkan soo gashay. Horto ani village iska ahaa meel tuulo yar aan soo koray xataa koronto lahayn waxba lahayn literally financial baa nan loo ahayd marka comfortable waa iskaan alxamdulillah basic cuntadeena saddex waqti maan waa jirin hooyaday baan u shaqayn jirtay alxamdulillah laakiin de nin tuulo ka yimid oo de tuulo infrastructure ka jirin waxbarasho ka jirin cilmi ka jirin aqli badan ka jirin waa iska dareemi kartaa MBI baan dhigi jiray Nairobi magacanta soo gaabno marka Nairobi maana marka ciidiga ma soo horeena just to leap of faith na maaragtay aan magaalo weyn aan tago fursad ka raadsado nin iska soo haajiray doon maaragtay iska soo shaqo tagay markaan imidna dad qaraabadii ugu dhawaa markaas meesha joogay fiisa Mareykan ay sugaan waxay socdeen Mareykanka kooyton bari markaan la joogay xogaa dhar waxaan ka qaatay kooyton bari aan la joogay way bixin way dhofeen fiisiyo soo baxay marka ilaa amarkii meel internet ka fiican shaqo yar ka helay oo iimaan jiray wax ka daabacan jiray 2007 markaas ma sha Allah marka meesha internet ka fiican shaqadan ka helay marka nin saaxiib ilaa hadda nahay baa wuxuu sameeyay sano kale Christmas bay ahayd wuxuu yiri waxaan tagayaa Christmas reerkani ma aadaya maamadii wiigay meesha kale wuxuu yiri meesha ka siira shaqo igu siisin waa soo laabanaya just what to how to print client lacag loo qaado all that bas marka meeshii baan fursad yar ka helay alxamdulillah fursad meesha markaan ka helay wuu soo laabtay maamadii meesha kale bay tahay lacagta maal baa noo keentay nimanka ma keeni jirin inta keenta anu daacad baa iska hay wixii meesha ku soo shaqeeyay ma ku keena Sax ma sha Allah. waxay tiri nimanka tuugo ay dhacaan adiga meesha ku bedelay adiga joog labada cayrina ma cayrina waxaan ku nimanka la xisaabtan let them compete with me space yaro kor ka banaanana meesha ka saar oo kirada ku ahayd kulli waa naga badan tahay aan wada shaqeyno aniga aan lead u noqdo sidii baan shaqada ku helay alxamdulillah 5 good years baan ka shaqeeyay waxa ku tusaysaa marka inaan dedication lahaa 5 years qof Soomaali hal meel ka shaqeyn karo aad bay adag tahay waa hada maanta fiiriso qof maanta bari wuxuu ka shaqeyn xaaladaasna ka duuneed xaaladdan ay ka duuneed things were very hard 2007 8 oo dareem karta xilliga waxay ahayd markan yahow Allahumma musta'an shantaas sano meesha aan ka shaqeynayay Swahili waan ku bartay Ingiriisi waan ku bartay basic computer waan ku bartay dad badan baan ku bartay the best thing to invest in life na waa human being connection ka aan ku bartay aad bay aan fiican nolosheedii wax badan bay ka bedeleen anoo marka dhisan oo basic luqadii wax walba dhisan systematically dhisan wax fahansan computer science cilmiga computer wax ka fahansan digital world ka faa'iideysan karo baa waxa aaday Suudaan track baa baan ku soo galay Nairobi trackti aan Nairobi ku soo galay isla track kale fiisa waxa xasuusta Suudaan ma fiisa ka xareystay way reject gareeyeen waxaan raacay track baa inta ka raacay nin baa odayaan isku baranay internet ka meesha joognaa waa israacnay track baa inta ka raacay trackii waxaan ku tagay xuduudka waxaan xasuustaa $100 watay baasaboorka $50 fiisa laga qaatay qalin baa lagu qoray xataa computer ma jirin boor waxa waa iska galaya wada marka $30 na jeebka aan ku wata meesha tagay $20 intaan ku sariftay anoo $30 wataan Djibouti ma sha Allah saaxiibana ay soo dhaweeyay gurigiisa ku degay hotelkiisa wixiisi waa isla waxbaan isla bilownay company hadaan ku shaqeeyo season global markaas magac kala lahaa season general trade manager aan bilownay small trades waxaas baan ka shaqeyn jirnay ma sha Allah alxamdulillah cyber cafe idea waa ka bedelnay because infrastructure internet meesha kama jirin kama jirin wixii markaas waxaan bilaabay inaan trade business galo kan item kan gad xagga kan qaad Soomaaliya iska taqaan waa traders all of them marka sanadka joogay wadanka dagaal baa ka dhacay dagaalka ku dhacay dadka loo kala tagay aniga marka waxaan eray meel wadanka ugu socday ma kana fahansanaa luqadda carabiga soo fahmaayo systemkii aan fahmay markaan noqotay inaan maaragtay aan bilaabo something different wadankii dagaal uu galay economy collapse baa ku dhacay markaas waxaan bilaabay inaan raadiyo corporate organizations who can pay me in dollars because of hada lacag hard currency leen wax ma qaban karay exactly that's how I went to Juba wow waxa hadda halkaad ku jirtay $30 xal gashay dalka Suudaan Suudaan marka kulli waa xamleynaa sheeko qof walba inuu ogaado ee muhiim ay tahay qof $30 dal la galay dalkaasna lacag ka sameeyay marka Suudaan maxay ugu duuneed wadamada kale $30 in la galo lacag laga sameeyo adag tahay mise adiga ka dadka duwanaa wallahi ma dhihi karo dadkan ka duwanaa I think inaan maybe ka hard work sana oo maybe dhalinyarada ila joogtaan ka dadaal badnaa macquul waxda dadka aan ugu doonaa oon garanay ma jirto laakiin oo aan ka ahayn maaragtay inaan hungry mar walba oo hayna wax raadiyo fursado ama albaab walba aan garaaco ama aan never give up marka wadankaas lacagtan la tagay wadanka wuxuu isku darsaday wuu cusbaa 2012 kii wadankaas tagay
11kii waxay qaateen independent waddan marka virgin oo fresh oo fursadihiis dhan wada bannaan yihiin oo adduunka markaas u furayo ahaa marka waddankii cusub iyo anigii oo markaas maasha allah energy aad iyo ambitiouskii aan ahaa waa isku darsaday then every opportunity aan helay ma waste gareen aan kaga faa'iidaystay tusaale qof maanta wax bartay lacag yar oo wax ku bilaaban haysta laakiin aan aqoonin wadada uu ka bilaabi lahaa maxaa adiga ahaan maanta ku imaado tala nooceesii lahayd qofkaas horta qofka intuu wax bilaabin waa inaad isweydiisaa maxaa ku fiicanta what are you good at you have to figure it out wax intaada sidii wixii loo samayn lahaa intaada baran maxaa laga rabaa inaad lacag ka samayso business-kana mar walba waa solution inaad keento to existing problem business meesha markaad aniga furaynay waa loo baahnaa hotel safarada naga soo jeedo taas kale markaan furaynay safarada naga soo jeedo area dan waa area aan study ku sameynay in baahida ka jirto oona ka sameynay wixii wax ka duwan marka qofka dhalinyarada in isweydiiya horta adiga intaas dhalinyarada ahayd maxaad jeceshay what entertain you then wixii markaad ogaato you figure it out what do you want to do markaas baad waxaad raadin kartaa how loo sameeyaa how it is done marka wallahi fursad Africa markii loo fiiriyo maanta adduunka kale fursadaha meel business laga sameeyo lagu successful noqon karo iyada ugu fudud at the same time dadku waxa haysto qof walba xulay Africa waxa ma jiraan laakiin waxaan haysto waxa weeyaan procedure-ka business-ka wuxuu yahay solution u raadi existing problem wax walba oo rabtina xal u raadisana qof baa horta ka fikir xal u raadiyo laakiin se maxay khaldeen how waxay ayaga say halkiisi loo rabayo what are they taking advantage oo client-ka kala maaratay ay waqtiga u faa'iideysanayaan marka for example anka inta sameynay maxaan advantage ka qaatay corporate hotel-ka ma lahan relationship with the client waa just commercial baa ka dhaxayso laakiin anaga maxaan build what are we building waa relationship hospitality itself marka waa tusaale ahaan coffee shop baa imaanaysaa coffee shop kan maxaa ka qaldan baa leedahay hadda rabtana midka kale ka furto ama tiisa area ka furto maxay client-ga granted u qaadanayaan adiga rabta inaad saxdo waa marka wax walba qofku bilaabay waxa ku xiran tahay what are you good at qof wuxuu jecel inuu coffee shop run gareeyo qof wuxuu jecel inuu hay'ad furo qof dukaan furo qof hotel furo qof transport business sameeyo aniga logistic is something I do laakiin I don't enjoy waxaan jeclahay inaan sameeyo hospitality wax la design gareeyo decorating fixing things hotel wax la mid ah